Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta ku xiran janaalka Canshuur Official. Maalmaha waa la kala maqnaay waxyaabaha qaarkood ama soo awoodi waaye inaan soo duubo. Marka ilaahay mahad leh maanta i suurtageliyay inaan soo duubo fiidiyoyaal oo maalmahan aan soo duubin. Marka soo dhawaada kun iyo koo jeer idin soo dhaweynaynaa. Janaalkan waa naga daawanaysaan waxaa waaye janaalka Canshuur Official. Marka waa mar labaad gacmo furan ku soo dhawaada. Markii hore iyo markii dambe waan isweynay. Ilaah mahad leh waxaan isku dambaysa amaleynayaa fiidiyoo caad oo soo duubno Ramadaanka. Asxaabta qaalida ku xiran janaalka Canshuur Official horta hambalyo waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale dib loogu soo doortay madaxtinimada dalka Soomaaliya. waxaa leeyahay madaxweyne Allah ka dhigo kii dalkaas iyo dantaas iyo diintaas anfac Allah ka dhigo bashbashi barwaaqo marka Soomaalida ama meel waliba dunida daafaha caalamka ay joogaan waxaa loo duceeyo waxaa la garab istaago madaxweynaheena dalka Soomaaliya koley madaxweynaha hadii la aflagaadii wuxuu qaban karaa ma lahan laakiin markii amaantaan wuxuu qabanaya insha Allah bidnillaahi kariim koley hore wuxuu dhahay qabyo ninkeeda dhameystiro Allah ka dhigo ninkii qabyada dhameystiro insha Allah bidnillaahi kariim maalmahan oo jeedin Canshuur Official ay iga maqan tahay waxay jirtaa magaalada tan Muqdisho insha Allah mar dhabna insha Allah way imaanaysaa way soo laabanaysaa marka asxaabay waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad nagu dhiirigeliya inaanu share gareysaan oo ka bacdi subscribe like share comment inaanu dhahdaan bidnillaahi kariim marka maalmahan dad badan la soo xiriirayeen Canshuur Official iyadoo joogta magaalada Muqdisho anigoo inta ka joogo waan qaabilayay dadkaas dad badan waxaa jiro guryo badan soo codsaday oo dhahan guryahaas noo soo duub noo soo fiiri si u kala yaaliin sida loo dagaa waxyaabahaas oo dhan marka tan ugu dambeysay waxay gabar naga soo xiriirtay Ariga iyo Ingiriiska oo dhahday guri noo soo duub sidaan iyo sida loo dagaa kabacdi markaan u duubay marka dad qaar Soomaali waxaan jiro oo guriga raba ku soo dhahayaan aniga horta xoogeena markuu horeeto ku sheego waa sadaqaysan qof bin aadam lacag kama qaado qof bin aadam lacag uma siiso lacagta aniga jeebkan ka sii diibano ilaah markiisa gaarigeena tugtugeena iyo meelaha aadeyno iyo mar qaarkood waxaa jiro guryaha markii soo fiirinayno kuwa oo isag samsaarka ama kuwa dalaaliyaasha sida u taqaaniin lacag jeebkan ka siina qof bin aadam marsano alxamdulillah xoogeena anigoo sii sadaqaysanayno Soomaali kale waxaa aragnay guri marka u soo fiirino oo guri mar qaarkood waxa loo leeyahay carbuun dhig carbuun saa u taqaaniin waxa waa lacag oo waxa sii dhigtaa deposit ina gurigana ay jaaranaysid lacagta qaarkood markaas sii dhigno dadka guriga waxay ku leeyihiin anaga waa mar rabno bishan waa baaqanay bisha dambe imaanayna marka Soomaaliyeed please waa idin baryanaa haddii maanta daacad ay ka tahay inaad Masar u soo guurto arabto inaad soo degto waa soo degi kartaa laakiin meeshan ku jirta anaga Soomaali aan ahnay been inaan isku sheegno ma fiicno beentana waa shay xaraan marka dad badan ay la soo xiriiro ku dhahayaan gurigaas hadda ilaa guri waxa soo fiiriyo oo mafruush guri waxa soo fiiriyo faad fiidiyool badan ka soo qaaday dad kale oo raba u diray markaan u diray maxay ku leeyihiin anaga waa baaqanay waxaan imaanaynaa June ama bisha ku xigto toddobaad marka intaas qof bin aadam kuma sugayo oo ijaarinayo qofkii lahaay marka Masar waxyaabo badan oo ku arkaysa hadda maamooyin badan oo ilaahay ku nasib diiday oo maanta naga faa'iideystay oo ay xagga joogaan lacagooda soo dirsaday oo dad meesha u joogay oo soo qaabilay oo guri u jaaray way jiraan u fahanteen marka asxaabi please marka Qaahira arabta inaad soo degto sida hore idinku sheegay waa inuu dadku joogaan marka ugu horeyso lacagtaad u soo dhiibato oo guri ku ijaaro oo ku diyaariyo hadda insha Allah bidnillaahi kariim waxa soo socota maamo oo Mareykanka soo socoto oo soo degi rabto Qaahira gurigeeda loo ijaaray iyadoo mafruush ilaa ku soo ilmay wadataa marka ilma aan wadato boorka waa soo dega dhahdid ama dad kale inta dul saar ku naqanaya dhahdid miskeenaysiin ilmaha dadkaas u joogaan iyo ilmahaaga marka waxa ku fiican aad qaasatan ahaan inaad guri iska ijaarato oo ilaa ku soo madiiday oo isha maxal lahaay oo dadku markay ku joogaan lacagtada ku aaminto sida ku ijaaraan alxamdulillah rabbil caalamiin dad badan ku guuleysan oo saas sameeyaan horta wiliga Allah ogow marka meel soo aadaysid
ha ku fikirin inaa hor ka soo baxdo kooda horanta dadka la soo xiriir fiiri qaahira waa side guryaheeda meeqa u jira guryaha bay kala fiican yihiin dad badan xataa waxa ay weydiiyeen qaahira guryo kale inta ma jiraan guryo kale way jiraan sida hore idinku sheegay oo dad tabar yar degan qaar ku dhaxay anaga jabkeena ma awoodno waxaa heesano ilma yar yar intaasna kama bixi karno guryo dan yar rabnaa marka way buuxaan qafa inta guryo dan yar ana degnayn ma leh waxaa jooga Sudanese ishak Indonesian waxaa jooga Malaysian ay dowladda jooga oo maanta ku nool qaahira oo wax ka barto guryo dan yar ay degan yihiin oo iska raqiis ah $100 $150 camal markii la isdhihin qaahira lama soo degi karto waa soo degi karta adi iyo jaabkaaga waa sida wax u baxsan karto guryaha way kala yihiin qaar kala fiican qaar $300 qaar $400 qaar $500 marka way kala fiican yihiin marka haddana dadkan ciidahan wadankan aan joogno qaar Allah si ayagana way kala fiican yihiin dad aan naxariis badan oo guriga ku dhahay intaas kaaga ijaaraan marka ko ilaah kugu soo adiimahane inta kale Allahu a'lam marka alxamdulillah anaga waa fiicanahay waa ujeedin maanta calankeyga Soomaaliya wataa waxaa leedahay weliga alahaado calanka Soomaaliya xiran ma arkine madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka la doorto may ka keenta camal marka dad qaarkood meel kale wax laga fiirinaya igama keenin wadanima iga keentay qabiil xabad ii tirimay qabiil waa quran marka waxa waaye xasan sheekh maxamuud waa nin madaxweynaheena hore ahaa jiray Allahu musta'aan farmaajo qabsada farmaajo kadib bacdeed asa u soo laabtay marka waxa uu rajeynayaa mid dalkiisa iyo dantiisa iyo diintiisa anfac ilaahayna oo ka dhigo midda koowaad dalkaasna uu naxo insha Allah bidillah karim anagana ducada ku kaalmeynayna qaahira ma sha Allah tabarakallah maalmahan waxa aad ugu soo badanayaan dadka qurba joogta oo ka imaanaya ardayga iyo Mareykanka Canada iyo Yurubta meelaha kala duwan oo ilmahooda la soo cararayaan meeshan Masar sida hore ku sheegay waxbarashada ma sha Allah tabarakallah waa meel aad iyo aad u wanaagsan oo waxa ka barakarto ilmahaada waxna ka barakaraan adina ku anfacayaan ilmahaadana anfacayaan marka dad waan arkay imaadeen bilna ku wareereen oo iskaga laabteen horta meeshan sabar ay rabtaa marka imaado dad waxay rabaan hore inay wax ka helaan hadda Mareykanka insha Allah waaba imaaday ka soo qabo hore inaa ka fahmo muhiimadeeda ma aha inaa 2 bil 3 bil 4 bil ay qaadataa marka Masar imaadnaysid u dulqaado ama dulqaado wix walba kugu dhaco waayo adaa muraadka leh adaa imaaday maxaa u imaaday inaa maanta wax ilmahaada ku bartaan dad qaar waxaan arkay dhahayaan Allah waxaan dadkan maxaa waay biri horta Masar baan kuma sheegay kama dhamaato bukra balana leedahay مثلا balanta leedahay waxa uu leeyahay maanta mawcid leedahay waa tagtay ma hotaay waa tagtay maanta waxa uu leeyahay mawcidkaaga maahan bacda bukra tagtay haddana waxa loo dhahay isbuuc liga imaa marka sabar ay rabtaa meesha haddaada sabrin meesha ma la qabsan kartid laakiin haddii aad sabarto waa la qabsan kartaa marka dad qaarkood waxay soo weydiiyeen guryaha qaarkood kiradooda waa meeqo marka sidaa idinku sheegay dad Soomaali jooga ugu badan su'aalaha soo weydiiyeen commentiga ee dhaheen guri dhalinyaro jaamacad oo dhigto ma la helaa oo la dago of course waa la helayaa way jirtaa dhalinyaro waa la degi kartaa dumar oo haddii aad tahay dumar oo gooni u dagan way degi karaan marka su'aashaas igaarkaas ay soo weydiiyeen saaxiibow haddii aad maanta aad rabto inaa imaado qaahira waxa isdhihin maanta guryaheeda waa qaali waa ku noolaa kartaa igaarka la Kampala joogo su'aal u soo weydiiyay inaa kaaga jawaabo rabaa maadaama magacaada garanaynin saaxiib visa dalku galkan Masar waa la helayaa marka dad badan kala shaqeysta meesha aniga kulli wax badan isku ma qaban kari dad hadda waxay u maleeyaan hadda maamada meeshan ila soo xiriirtay iyo ardayga iyo Canada waxay ugu tiray hadda imaado inay caawiso rabaa iqaamooyinka meelaha sida loo xareynayo horta meesha waxa nin walba shaqo leeyahay shaqadiisa waa gooni ana ay afaarahaas iyo wax xareen iyo iqaamada sida loo xareeyo oo waxaas mawduucaas ma galo laakiin sida ay sheeg barnaamij kale oo wadada ugu fudud loo marayo waa sheegi karaa marka dad qaarkood marka aan inta kaliya ku caabi karo waxa waaye guryaha qofka rabo guryo noo rabo canshuur official marka la soo xiriiro oo ila soo xiriiri kara telefonkeyga marka la soo siiyo guri meesha saaraba marka ay dhaho waan geey karaa guriga rabo ilaa ما شاء الله تبارك الله انت هدا انيغا oo abilaabna dadka ina caawino ama dadka ina guryaha ageegeeno ilaa hada caawinona xoogina waa sadaqo kaamirada soo duween waa sadaqo idinka nagu caawiya bas like iyo share iyo comment intaas kaliya nagu caawiya
insha allah biidnillahi kariim mar walba niga macaajiseeno qaahira waan iga soo horeynay dad badan way joogaan insha allah biidnillahi kariim inta qaar soo socotana kolley dad badan aad u tiro badan nala soo xiriira soo socdaan marka bifadlan please guys dadka ku xiran canshuur official journalkeeda bifadlan haddii aad guri aad rabto haddaadan diyaar ahayn hana soo wicin dhihin ani guri xalee soo fiiriyo guriga aniga fiiri waqti aan ku bixinoonaa waa isdiyaarinoonaa waa bixoonaa waa deganoonaa waan isoo duuboonaa idinka fadhigiina iska fadhisiin saan iskaga fadhisiin waxa kasoo marma ogtahay ma ogid haddana markii guriga aan soo helo keeno ama video ahaan u diro waxaa leeyahay xaajiga wuxuu yiray xaajiga soo tashtay wuxuu yiray bishan waan jooganaa bisha dambe bixina marka intaas waxay iga tahay walaalnimo iyo ra'yigelin dad badan asaan ii galay waxa iga keena maanta video inaan soo duubo dad badan adigu dhabaad 5 qof ilaa 6 qof camal ay gaarayaan guriyo badan oo soo fiiriyay ilaa 3 guri 4 guri camal oo soo duubay marka soo duubay waxa uu dhahay xaajiga hadda mashquul ahay ma soo bixi karay waxa soo baxaya 2 bil kadib waay ninka masriga guriga ii furay oo ilaa ku samadiida oo soo tusay waxyaabo camera ag soo qaat maxaa uu sheegay marka hadda daratan ugu dhacday guri markaa soo fiirin gabar ay soo wacdo waxay dhahday daruuri ahay Cabdiraxmaan oo ku baray saaciday garkaaga haysta abo ilmaha soo socda bishii lixaad afarteed iyo shanteed ama raba arday iyo Australia meeshaas ay ka imaartay okay waa ku caabinaan dhahay guri faadi aan rabaa dhahay waa soo fiiriyay ilaa ku samada waxay ahayd 3 qol iyo 2 musqul iyo saalo weyn aad u balaaran markii soo fiiriyo waan u diray WhatsApp-ka meesha ka sugaayo walaalkeeyo carboon iga siidig ilaahay waxaan qaadanaa gurigaas gabadha markaas habeenkii ay soo wacday walaalkay waa baaqday waxa imaan rabaa bishii 7aad saas oo la soco gurigana iska fasax maxaa ku fasax wajiga ku fasaxay sheeg ninka masir guri lahaa soo wacay يا عم انت فينك يا عم انت كذاب انت ليه ما تقولش انا هي وحو الي ادب بين لا tahay maxaa ilaadaani guriga waa rabaa waa afaaraso ila gal yaa ii kan dibkaas idinka ii keen marka idinka hadaan ii keenin ana dibkaas dhama igu dhici lahayn marka intaasna igaraale naqda marka intaas waxay gahay walaalnimo qalbigayga waxa ku haylahay ama wasaqa ku haylahay inaan in shaga fiican marka anigu waan jecelnahay canshuur official teamkeeda rag iyo dumar nagu wada xiran insha Allah intaas in la mid ah gacmo furan igu soo dhaweynayna laakiin sida aniga idinku caawinayna idinkana nagu caawiya na fahma marka qorshaha meesha ka wadano Masar meel walba ka baranaysa qof maanta barta hadda wadanka aad joogtid adigu ma dhalan waa tagtay waa baratay kan wadankan hadaa imaado waa baranaysa ma fahanteen marka insha Allah biidnillahi kariim saas ula socda hadii aad guri aragtiin wali waxaan igu diyaar idin ku nahnay in guriyaha qaani geeno inay soo fiirino say u kala fiican yihiin iyo say u kala qurux badan yihiin janaalka naga daawanaysan oo canshuur official fadlan heen ugu caawiya subscribe like share comment intaasna dhiirgelina noo tahay qaahira ma sha Allah tabarakallah wallahi waa balad aad iyo aad u fiican wallahi hadii serious laga hadlo oo adiga qalbigaada qulubtaada u fiican diinta ka baranaysid hadda shalay waxaan arkay wiil adiga wuxuu imaaday ilaahay bay afkayga been karay 2018kii oo imaaday laakiin bishii ma xasuusto cunjar waa adiga wuxuu jiraa 4 jir 5 jir camal ah cunuga waxa arka ma sha Allah oo quraanka intii marasa markii aad dhaho aayad wiligiisa oo akhri karin oo akhri ما شاء الله تبارك الله markay ilmahaada ku dadaasho quraanka aad barto macallimiin aad qabato oo jaanis ana siin way ku dadaalayaan ma sha Allah lu dadaal cunuga telefoon dhan lama ogolaan subaxdi macallin soo galay oo Soomaali markuu baxo duhurkii waxa soo galay markuu qaday macallin Arab ma ka baxay hadana galabtii waxa soo galay macallin kale Soomaali saddexdaas jaanis oo haysta Arabigana waa la baraa quraankii waxaas waa la baraa af Soomaaliga ku adadka af Soomaaliga si fiican ugu bar markuu iimaanay ana xataa ma fahmin Ingiriiska ku hadlay marka luqad walba la bartaa خلاص marka waxay naga tahay waana dhiirgelin insha Allah biidnillahi kariim halka naga daawanaysan sida meesha waa canshuur official marka naga raali naqda inta xumaan noo aragtay inta wanaag noo aragtana dhiirgeliya commentigina noogu reeba marka insha Allah saas ku ognahay marka video igu sii batay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh